World Vision is currently supporting a number of schools in Puntland, and one of the challenges we are facing is to be able to get accurate information around enrollment and daily school attendance of children, as well as teacher attendance. And so that gives us a challenge in providing our donors accurate information around the children that we support in the schools. In order to overcome this challenge, we partnered with the Response Innovation Lab to develop an app that would enable us to track daily school attendance of the children as well as the teachers. The Response Innovation Lab is a global partnership between World Vision, Oxfam, Save the Children, George Washington University, and Civic. The goal is to support and identify humanitarian innovation. We are working here in Somalia, and last year we were approached by World Vision with the challenge of identifying and maintaining school records around children's attendance. Through our matchmaker process, which is our process of identifying and matching challenges with solutions, we were able to identify a system that was developed in Kenya by CCTech Limited and the UNICEF Kenya program to monitor school children attendance. The program was called the Digital Attendance App. Then over the last several months, we were in the process of looking at how do we adapt that system to the Somali context. And so that began with bringing the developers out to Puntland to meet with the government and various stakeholders to really understand the context, and then to take that feedback back with them and to then really contextualize the system. Then in August of 2019, we did a teacher training and we got some more further feedback, and then we launched the system in 3 schools in Puntland, where we're currently doing a pilot. So it's been an exciting process to see how we've moved over the course of a year from 2018, from identifying the challenge to finding the right solution, to tailoring that solution, and to now roll it out into the schools and to understand how this system can be improve learning outcomes and improve decision making with better information. waxbarashada wax badan oo muhiim ah buu leeyahay because 9 gobol bay wasaaradda waxbarashada hoostaga waxa hoostaga 779 iskuul oo primary ah waxa hoostaga 200 oo secondary ah 900 siyaado ardayda dhigatana 200 kun tahay wuxuu tarayaa wax weyn buu ka bedelayaa wasaaradda barnaamijkaas hesho waa caqabada hadda wasaaradda haysta ka bedelaya taasoo aan u saawaynayo meeshii sanadle iyo bille la sugayay waxa la helayaa enrollment-iga ardayda saaka galaaska ku jiray waxa la helayaa macalinka xiisadu dhigayay ma yahay macalin qualified xiisadii ma yahay adu galaaska management kareyn kara wasaaradda dhexe turus ayaa halka wax ugu helaysaa iskuulka wax ka socdo dhaqdhaqaaqis in iskuul oo Puntland ku yaala teknolojiyada wanaagsan oo casri ay tahay aalada hadda maanta jira ay tahay aad baan anu intaan ka arkay qanac waay wasaarahana waxaan aaminsanahay inay qanac ku noqonayso aad u anfacaya application kan DAA wuxuu noo awoodsiiyay oo inaan awood u yeelano noqotay inuu ahayna maalin kasta xaadirino ardaydii oo aan maalin kasta ku sameeyno xogtii iyo dhameystiran ay hesho wasaaradii marka xogtii iyo application-kii oo dhamaantood iyo wixii oo dhan ardaydii ay halka wasaaradiina kala socoto system-ka xitaa program-ku waxa ku jirto kale inuu ku save gareysan yahay dhamaan kuraasta ku xareysan in qalabka iskuulka oo dhan inuu dhamaan xogtaas oo dhan oo ku computer gareynaya dadana xogtii oo dhan ay si live maalin kasta ugu gudbinayo wasaaradii استعمالك موبايل استعمالك application DDA waxa aad buu fududyahay runtii luqadahaan iyo dhamaantiis aad buu fududyahay waxaana training ugu siiyo qoliyaha innovation labka oo noo sameeyay inaan training ku qaadano annagina wax badan ay noo fududeysay oo registeradii iyo gacanta aan isticmaalinay aanu ka gudubnay ma garad caqabadaha naga qabsan jiray waxay ahayd buuggii waa wax yar markii aad xaadirisay dhowr maalmood oo iska ka buuxinaya khalad baa kaaga dhacaya ku tirtirmimayo markii la xaadiriyo ardadu buugga annagu nagu ekaa qoliyaha nala shaqeeya inay kormeer noogu yimaadaan marka registerka baaraan ma ahane daily uma heli jirin xogta ka bacdina mobilkii baan soo gaaray annaguna sidii aan isticmaalay taas marka waxay keentay
in meeshii wax dhaba inay ka socdaan oo maalin kasta in casha duruustii baxaysay ardada xaadirka ahayd in meeshii shaqo dhaba ka socoto si World Vision ay ugu kalsoonaato ayaan daily reportkii ay u helaysay. So the Response Innovation Lab gave us a solution which is the digital attendance tracking application that was piloted in Kenya. Currently, the teachers from the 3 schools are able to track daily attendance of children, and also using the tablets that they were provided for by the Response Innovation Lab. So far, we are seeing attendance being marked, and we are also getting information around the reasons why children are not coming to school, which is giving us information on how to better program to address those barriers that are causing children not to come to school. boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay intaan ka arkay iyo intii iskuulaadkii lagu testgareeyay waxaan aaminsanahay inuu wax badan u bedelayo oo barnaamijka hadda la joogo wax badan u dhaamayo wasaaradda. One of the things that's been really exciting is that the Ministry of Education has also been quite excited about this system because they see the potential for helping them with better decision making. And World Vision has also found great interest in the system because it helps them to better understand the dynamics of school dropouts and to then help with improving their programming.